wixii xalku sida ahaadaba soo hanaan dhimashada iyo noloshuba u kala duwanayn ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxa maqaaxi ku wada qaylay Soomaaliya iyo duq kale oo deegaanka aad caan uga ahaa laguna tilmaamay inuu yahay laandheeraha reerka uu ka soo jeedo Xaaji Soomaale geel badan oo boqolaal kor u dhaafayay iyo farda deegaanka cid haysataaba jirin ku suntan kolkii labada duq qayleen oo shaha iyo sigaarka iyo qaadkaba ay yihiin jeebka duqa taajirka ee Xaaji Seeraar Subagle sheekadoodii iyo xog warankoodii waxa uu ahaa sida tan Xaaji Seeraar Subagle war Soomaaliya bal waran maxaad sheegtay reerkiina ka waran Xaaji Soomaale Seeraarow in adeer waa la mahadi nimcee baa lagu jira reerkuna waa roon yahay bal adiga xagga iyo dhankaagii sidee lagu ahaa Xaaji Seeraar Subagle galadeeba weeye dhammaan reerkiina waa wada wanaagsanayeen deewaana iska xilligo nimca lagu wada jira Xaaji Soomaale waa runta Seeraarow waliba adigu taajirka tolka taho abaarna awr baad ka leedahay dagaalna cudud baad ka leedahay Xaaji Seeraar Subagle inta uu qosol ku dhuftay ayaa waxa uu yiri waa caynka Soomaaliya xoog iyo deeqdu waa noo hidaanaga waliba awooga waa nagi dagaalkii Raamaale intaanu dilay madaxiisa karsanay ileen waligay waa idka adkayno dadka anaga idka celin jirnee Xaaji Soomaale Seeraarow in adeer waa runta balse colaadda dadka tolka kala gaadhay ma jecel inaan ka hadlee qayilka iyo mirqaanka hay naga qasin Xaaji Seeraar Subagle waa runta cadhay iyo gocosho ayaa ka dhalata mooyee dheef kale lagama helo Xaaji Soomaale hahay wax garadnimada waan kugu ogaan leeyahay Xaaji Seeraar Subagle waa sida Soomaaliya weyniyo arrin baa baryahan maankayga ka guuxaysay u sheeg waan islahaayay waabaynu is arki weynay Xaaji Soomaale oo talow maxay ahayd arrintaasi bal khayr sheeg Xaaji Seeraar Subagle khayr way tahay balahay nagu kicin Soomaaliya wax kale ma ahayd waadigooga oo islaanteeda cambara waa tii tawaftay laba gukoor reerkiina gashaantimihii doobkan dhalay qabay mooyee xilooyin lagu aamino reerka ma joogaan Xaaji Soomaale waan ka warhayay geerida iyo dhibaatada soo wajahday reerka ii wad Xaaji Seeraar Subagle waa caynkaas marka aadna waadigii lahaa gashaanti yar oo curdina kollayna cid ka kaxaysa waad rajaynaysay naagina waa sugtoo nin daadaheeyay ka sugaysaa bal ka waran haday xiladayda noqoto oo aad siiso dunyada wixii loo baahdana aan gashiga ku buuxiyo Xaaji Soomaale wala Seeraarow in adeer nin karameed inaad tahay waan ogaa nin xawalay sida loo dhaqo lagu yaqaanana waa tahay haddii mid aan ku kadsoomay aad hore iga kaxayso maxaan ku diidi Xaaji Seeraar Subagle alla ilaahay inaad gobtahay maantaan ogaaday qodha iyo xirada wax lala xidido waa tahay horaan ku garan waaye Xaaji Soomaale waa runta ayo talo waa maraad garan weyday iyo maraad gaari weyday haddii eebe ku garansiiyay hadda haysiseejin Xaaji Seeraar Subagle way ka soo hadaba ku dan sheegtay waxa iga diyaaro oo dunya ah boqol geel iyo baarqabkiisii wagan fardaawo midabkoogu isugu jiro caynab xamar iyo bulaale iyo shan qoriyo maadhiin ah Xaaji Soomaale war maduunyadaas oo dhan baad ka bixinaysaa hoogtadii aan ogaa ayaa hoosta ka yiri Soomaale wuxuuna raaciyay isagoo hadalka kor u qaadaya kolkan warna adeer Seeraarow wixii in rag lagu yaqaanay baad fashay gabanimada iyo deeqsinimaduna waa waxaad hidow leedahay waan ogolahay ee goormayno arrinta ka dhignaa bixinta iyo meherkaba horta bishu 14 seermoweyda maalintuna waa hakis waxaan ka dhigaynaa 16 isla bishan oo ku beegan maalinta soo roga gaar ahaan dharaarta gelinkeeda hore goobtuna waa geedkii quraca ee degmada koonaheeda bari ku yaalay ee colaadii dhaweydna aan ku xalinay Xaaji Soomaale waa si wanaagsan hawraarsan in adeer Seeraarow haddana waan luqluqane waan si caraabaya intaan gobolku ii dhicin maca salaama waa inoo maalintaas Xaaji Seeraar Subagle hagaag sidaas aynu isku ognahay nabadgal sidii ayaa gobol dhacaas lagu kala tagay duq kastaana waxa uu jeestay halkii hoygiisu ka xigay oo u jarmaaday Xaaji Soomaale kolkii uu tagay aqalkiisii waxa uu la kulmay islaantiisii miyarada ahayd ee Saynab taas oo markaas caanihii ay listay carruurta siinaysa xoolihiina xaraysay sidii caadada ahayd soohan waxba lama siinin hore ayay aqalka u sii gashay oo iskaga seexatay degtana togogada u gashatay Xaaji Soomaale ayaa isagoo faraxsan oo waxaan hore loo arag ka duulayaan weydiiyay Saynab halka ay jirto soohan waxayna u sheegtay inay jiifsatay inta uu iska dhigay sidii nin xanaaqsan oo aad uga xumaaday arrinkaas ayaa uu ku qayliyay Saynab oo afka goostay misana xuubsaday una yeedhay soohan si naxariis ku jirto isagoo markii noloshiisa ugu horeysay ugu yeedhay weedha aabbo soohan aan aad u sii gamin ayaa jiifka ka soo booday una soo carartay dhankiisa Soomaale caana geelisa oo gorof ku jira ayuu u taagay oo yiri ii dhanaabo inantaydiyay soohan oo la yaaban wanaaga ka muuqda caawa aabaheed baa qabsatay oo dhantay caanihii deedna huleel u gashay aqalkii oo iska jiifsatay kolkii dhalaankii wada seexday ayaa duqii Soomaalaha u sheegay aafadiisa Saynab
waxay maanta isku afkarteen isaga iyo xaaji seeraar subagle. Saynab lafteeda iimaanka ayaa ka soo dhacay oo waxay u riyaaqday arrintaas, waxaanay ku boorisay inuu go'aankaas qaatay oo talada halkeeda ku gooyey. waxaana tidhi, igu halle dhankayga anaa jilcinaya oo madiido ka dhigaya Soohane, adna meherkaas iyo bixintaas yaysan ku seegin xaaji. habeenkiina sidaas baa lagu kala hoyday, iyadoo labadooduba ay dhoosha ka qoslayaan oo hoosna u xanshaashaqaya. markii waagii dambe uu baryay reer xaaji Samaalena mid walba uu ku foofay halkii hawli ka xigtay, kolka laga reebo Soohane oo aayadeed ay la soo hadhay si ay ugala hadasho arrinkii uu la wadaagay xaaji Samaale, ayaa ay soo fadhiisisay gambar yaalla agteeda, kuna tidhi, kaalay Soohane ii soo fadhiiso hooyo halkan. Soohan, hee hooyo maxaad iigu yeedhay? Saynab, hooyo quruxay hadda waadigan weynaaday ee maasha Allah noqday ma garatay? dee hooyo gabadhina waa guuri joog, horena waa tii looga mahmaahay, naagi qabri ama guri nin ha kaaga jirto, soo hadda maad garan? Soohan, waan gartay hooyo haye. Saynab, sidaa darteed hooyo fiicanay dee aabbahaa ninku guursada ayuu ku siiyey, oo taajira oo laandheeraha kana dhashay reer dun iyo xariir macaan, soo hadda imaad fahmin? Soohan, hahey si fiican baan kuu dhegaysanayaa hooyo. markaa hooyo waa inaad qaadataa talada waalidka oo aanad nagu dhagaadaygin, taas bay ku jirtaa wanaaggaaga adduunye iyo liibaantaada aakhiraba. Soohan, waa runtaa hooyo, idinma diidi karo, balse anigu waxbarashada ayaan jecelahay oo ma raba guurka. Saynab, waxbarashadu waa maxay hooyo? maxaad ku falaysaa, ma nin baa tahay? ragga ayaa waxaas isku mashquuliya oo cumriga ku lumiye, adiga ninkaaga ayaa macallin iyo waxbarashaba ku ahe. ma garatay isoo egdee hooyo, ha iga jeesanin hooyo quruxay. Soohan, may hooyo, anigu inaan waxbartaan rabaa. hablo badan oo facayga ayaa magaalooyinka waaweyn sanad kasta loo diraa si ay waxbarasho sare u soo bartaan oo horumar u gaadhaan. anigana waad iga reebteen oo da'daasaanan xataa weli dugsi ku baranin. markaa hooyo dugsi igu dara, ma raba guurkaadii la rabtaane. hooyo gabadh yar baa tahay, wax kuu fiican iyo wax kuu xuntoonna ma garanaysid. hablahaas dhaqankii bay ka tageen oo gaalada ayay raaceen. aniguna sidaas kulama rabo, guurkuna waa sunno nebiye hadiidin hooyo. ninkaaga ayaa waxbarashada kugu daray hadduu doonee. Soohan, ma kaa dhabbaa hooyo? ma waxbarasha ayuu igu darayaa hadduu i guursado? Saynab, haa, aniga ayaa arrintaa ugu sheegaya si hoose oo aan aabba ogeyn. Soohan, waayay hooyo macaan, waan ogolahay guurka, aniguna waxbarashadana waan rabaa. Saynab, hagaag hooyo quruxay, waa si fiican. hadda guurku waa berri 16 bisha Seermaweyda oo ku beegan maalinta soo rogga, ma garatay? Soohan, haa si fiican hooyo, waan isdiyaarin aniguna. Saynab, sidaas baa inoo ballana, si wanaagsanna isku diyaari oo loo qushuuco kolka reerka ku guursadayna ay ku arkaan. Soohan, haye hooyo igu halle, aniga cusbur iyo xinaba isku daliigaye.